بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسر إذا لهانتنا دقيسيال meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu uga hadlayno xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu ku saameeyeen mandiqada geeskan Afrika gaar ahaan koonfurta Soomaaliya. tani markii la waayay roobkii xilliga guga ayaa waxa ay keentay in meelo badan oo Soomaaliya kamid ah inay ka dilaacaan abaaro xoogan oo la sheegay in muddo 60 sano aanay ku habsan, waxaana sidoo kale la qaba Soomaaliya abaartan dalal kale oo ku yaala geeska Afrika. hase ahaatee marka loo eego Soomaaliya ayaa ah meesha ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen. gobolada dhaca dhanka koonfurta oo tiradoodu lagu qiyaaso 11 gobol ayaa saameynta ugu badan dhanka Soomaaliya ay ku yeelatay, waxaana ay keentay in goboladaasi ay isaga soo carraan dad aad u fara badan oo ku noolaa deegaano hoos yimaada goboladaasi, kuwaas oo qaarkood soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyagoona barakac ku ah guryo ka samaysan cawshado iyo marooyin oo ku yaala duleedka iyo gudaha magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa jira kumanaan qoysas ah oo ka talaabay xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya, halkaasi oo markii horeba ay ku noolaayeen qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed oo dagaalada dalka ka dhaca isaga carray nolol dhaanta tan Soomaaliyana u raadsaday dalkaasi. dad fara badan ayaana ku geeriyooday gobolada ay abaaruhu saameeyeen, waxaana taasi sii dheer in haraad iyo macluul dartii ay ugu geeriyoodeen qaar ka mid ah dadkii ka soo cararayay abaarta deegaanadoodii, waxaana qayb ka ahaa carruurta oo u geeriyoonaysay nafaqadaro. dadkan qaarkood baa ku geeriyooday inta ay ku soo jireen wadada dhexdeeda oo ay ku doonayeen in ay ka samata baxaan abaarta, halka qaarkood kalena ay ku geeriyoodeen goobihii ay deganaayeen ee abaartu ay saameysay. sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah dadka ay abaartu soo barakicisay, iyagoona ka hadli doona abaarta saameysay ee deegaanadii ay ka soo barakaceen. waxaan ku soo barakacay magciisa sagaal ilma dhalani, shan waa gaajo iga dhinteen, afar meeshan leema 45 lada ay shalay liib soo buur xasho liib soo buur, saddexna wadad ay qaan baahin oo dheer iyo inta magciisa xoolahan dhawaanaga dhamaadeen, xoolaha inta eri iyo inta loo aqbno waanaga dhamaaday. teeda kale beerahay wixii nooga baxay waana dhaca wax oo inta duli iyo dantar ameeshi ku kulugna faadan soo roornay ilmahan iyo inta ulka duli dantaran waxay ma beertayno xoogana soo qaato aan ku soo baxnay baahin noo gargaar waxaan soo gaaray male musqul u baahanay, teeda kale nadaafada u baahanay, ilmahan waanaga xanuunsan daaweyn loo soo gaarsiyo, teeda kale bur iyo baris iyo inta lacag iyo waxa taakula xoog leh u baahan. rooba ku doay qaar meesha ku dhinteen cali waxa ku dhintay afar caruur meesha ku dhintay oo biyaha qarqarka awgiis, marka waxa rabnaa si degdeg ahaan inaan noo soo gaaro dadkan kaamkan oo barakacyaalka oo la yiraahdo Maciirase Markaabe iyo Farxaani dadkii soo gaara, war dadkiina soo gaara, war yaa muslimna hooy dadka ummadaan soo gargaara, war ummadaan waa dhibiin, war ninka Ilaahay Soomaalinimo, war wadaninimo, war ummadaan waa baabaaysiin, war ummadaan Ilaahay dartiis wax ku siiya, war dawladda macnaha madaxweyne ama ra'iisul wasaare wax laga sheego wax ma taro ummadaan wax u taro wax qabad, war wasiiridow wax wasiir ama wasiir sheegto noo yimid ma jiraan, niman shakhsiyaad oo wax noo keenay waa jiraan, war ummadaan wax u qabad, war musqul ma haysano, war ay hada gargaarka wadanka di been ku joogtiin, war ummadii waa baabaayin wax ay aad noo yimid ma jiraan. ummadda Soomaaliyeed waxay baaqeen dadkii waa baabeen, reer Shabeellaha hoos waa baabeen, war hadii Ilaahay ka cabsaysin war ummadaan waa dhibiin. ولا كيوان بوفلا كيوان باهدان برس مال مقبنا بعض مقبنا ارمهيسن هنقول ارمهيسن لا واسع أبوه لا يمكن سجال هنا دولة يمكن سجال هنا كويسنا بالله بوفلا جيسور أكلا لنا جيسور أكلا جيسور مودو دكتوا بلنهارت واحنا فقط لي رمحايسن ومن هيسن بيات أوصل أروله أنواقه هيسنا كلا مشرين هذين قاعد مال قاعد هيسنا
قريرك يا بولفلات هذول تبون بين قريرك يا حبر هذول شمبر جد ما أنا كمال ونكون جد أو بادي أو الحمد لله بولفلا عمل يقصون قرن وهذا أنهم جد كده وقصون مرنا لو أصل المأور هنقدر متمكن ماشان هجان جوجنا ونرفيا جوجنا الحمد لله ونك هاي سنة اسكجوجنا ماشان جوجنا ونك دان هاي سنة مراها الحمد لله أنت بوشة أكون نسمع هنا جد هذا أنا صدق أو قبل نمران الحمد لله نورهم أنه هاي سأيون فهمهم لكن عشان هذا هوري سبع ما قبله جيل جرعان علما واقشي هرت مقص جدك أنا قولي يوم جدك دي مراها ونكو وبابور خسارين مراها وصل لقين ونقدر مثل لواتن قطري ما يسنو markii ilmaha kuwika unukaaba eber bahay isbahayni waa qasatan nimadas unuga dad waa duwinka talaabini badin ma qabno yaanbu nati waa lagu qala qotor ma qabno unuga afar dad oo waaqoon ximil karmin nimadas unuga girgaar rabna girgaar dawladda iyo wahay alla wahay la girgaar rabna baad raashinka alhamdulillah wahayna noo dhamaan noo qaadan daawo ilmaha jarcad dilwaysa daawo ma haysano waa markii waa alla wayna noo dhamaan noo qaalmeena markaas aroorta hadda jiifto waa tumo qayas أنا متر إلا واجب فاجر أنا قاعد وجل ما بكرة كثير فر. ما قاعد شيخ إمام المختار علي هذا لقمة كرتواري تولد أفقو يري أنا سوق عني يو قاعد نقول هذه أبارات نقول هذه أنا سوق عني أما قالت له ماني إني أبار نسوق شيء أو قاعد أنا سوق بتي الماء وسوق هين وكنا ماني مقالة مقدشو نفكاس أنا كيني إني نو تاجر ونو كالميو ونفط نو عليو وقاجدنا نغليو وافماس كنا نلو دالو أنا إن ماذي مقالة ده حساس كجوجنا وعن وتا لبا أرورا دي حاس كودنا يعني كفا أفرها اسكنا لبو ويل يجبر يعبرت يا أنا أبا أفر اسكنا هاي على ذاين شالي قلبتي شالي سيدت كسر روك نقبتي إلا حالي بالراجل لو كرسل ولقواي بالراجل لو كرسل ووايني طريقة نقلعوا يا روكي أنكو حجرنا علمه روكي كده أوهاي لأن عياذ به مرك علمه روكي ميل أي سهزان وين إرك لوكي كده أوهاي إركي كسود أوهاي هوس سنبي ذات أغصعد meeshan ku joognaa deenta la'aan iyo dirbaala la'aan meeshan ku taagnahay ilmihii waa wada xanuunsadeen aniga adoogi ahayn waa ka sii daranahay xaaladayda aad baan u liitaa anoo xanuun ihay xanuunkaygana kala zaa'id as yahay agihii ku istaagi lahay oo i kaceen barar igu noqdeen beeraha iga kaceen dhib uleys weyn saaran yahay إن لي إجارو داولي لقصحان لي يوكيو داوداس داولي إكين أيان أباعنا هاي لك ماشي وحلا لقى قاتو هاي وأرضو هاي ومكئي كار وفديا بوسكي كمكة أكار سلاسنو أغبرارسن هاي وحان بانكو أصلنا يا إن أنيقا caafimaadkayga liigu dadaalo anna sidii aan ku caafimaad lahayo cudurkaasoo liiga dhici lahay ayaan u baahanahay anna ostanohaya ayaan idinku ostanohaya inni lii daaweeyo aan istaaga meeshii ummaddu ku ceysile aan u kaco wax ka keensado ayaan u baahanahay ina daawo fiican oo la isiyo aan ku kaca ana magaalada sheego samu magaalada qaamka dhabka haaya may kumada biilaan biyeeda aan ka dhabtabna mas'uuleeda aan ka dhabtabna jirin jarta oo kumada jiro sabab ada wasaqu haduna ka jarna an sabab iyo nay gaajidi korkulu kooni sabab tumu ishan lan yan oo ka dhamti shaleen ka dambeyti hawaalan marka biyo ma qabno onte ma qabno mas'uul ma qabno daawo ma qabno dirbaal ma qabno eeda dhibaato daroyan hayte marka dhibaatadaas jarta hadana ilaahay sallijay in dhibaatadaas in noo saariyo fadal meel uu roogna meel oo arinday gashan qof hayti isa baada tixrada wareegdahayo meel uu roogu waysino cudur ku qaadaw hadana eeda dhibaato hayte labaatan geej kale ahay illi hami inta leeyo waana baahna waana gaantay mideerna daajadi korkul qoyni sagiirkan dadamado hay gurileen leedahay baayna tamahay hadana talay baadana sinis baahni gooyay dheeri ku qoyn dadbaataysan abaaraha ku hoori en ol mahana galna abaaraha ku hoorni oo ibaaya na gali
qaladhaantan ka soo yeertay dadkan ayaa door weyn waxaa ka qaatay warbaahinta caalamka taasi oo tabanaysay cabashadooda abaarahan ku dhuftay mandiqada geeska Afrika gaar ahaan koonfurta Soomaaliya oo ah goobaha ugu daran darteed ayaa qaramada midoobay waxay shaaca ka qaaday in xaalad macluul ah inay ka taagan tahay dalka Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaana ugu baaqay dalalka deeq-bixiyaasha inay ku caawiyaan dadka abaartu ay saameysay ee Soomaaliyeed adduun gaaraya 1.6 bilyan oo dollar oo uu sheegay in lagu dari doono lacagaha loo qoondeeyay in lagu gargaaro dadkan balse barnaamijka cunnada adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyay la yiraahdo WFP oo hoos yimaada qaramada midoobay ayaa hore u sheegay in aanay kaalmooyin gaarsiin karin gobolka qaar ee dalka sawadanka ammaanka waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in gobolada Bakool iyo Shabeellada hoose ay yihiin kuwa ugu daran ee ay saameysay abaarta dalal badan oo adduunka kamid ah ayaa hadda ballan qaaday in ay ku yaboohi doonaan deeqo fara badan isla markaana ay u diyaar yihiin in ay u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ku habsatay abaarta waxaase xusid mudan dawladda Kuwait in ay ahayd dawladii ugu horeysay ee soo gaarsiisay diyaarad waday shixnad gargaar ah gudaha magaalada Muqdisho taasi oo loogu talagalay dadkan dhibaataysan waxaana dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ay magacaawday guddi ka hortaga abaarahan oo u gurmada dadkan ay saameysay abaarta balse waxaa jira dhaliilo badan oo isla durbadiiba ay u jeediyeen dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo dad kale oo aad ugu dhuundaloola arrimahan dadaalada la gelinayo in lagu caawiyo dadkan abaaraha ay saameysay ayaan kaliya ku koobneen dalalka caalamka qaar hase ahaatee waxaa jira Soomaali fara badan oo ka damqaday oo bilaabay in ay gurmadaan hadday ahaan lahaayeen ganacsatada ardayda jaaliyadaha Soomaalida ee qurbo joogta shakhsiyaad si iskood isku soo xilqaamay iyo kuwa kale oo aad u fara badan Sheekh Axmed Qudubi waxa uu ka mid yahay mashaa'ikhda Soomaalida kuwooda ugu caansan ee ku dhaqan dalka Ingiriiska ee dareen murugo lehna ka muujiyay dhibaatada la soo diristay dadkan sheegayna in uu ka harsan waayay qaabka ay u saameysay abaarta dadkan taasi oo keentay inuu safar ku soo gaaro magaalada Muqdisho waxaana uu dareenkiisa ku muujiyay sida tan roobkii annagu aan la joogi lahayn guryaha dhexdooda iyaga iyo cirka aan loo dhaxaynin caruur iyo waayeel iyo haween derbi ku naban oo roobkuna ku da'ayo oo muxuu ahaayay aniga guriga aan joogay waan joogi waayay sariirtayda waa ila xumaatay wixii la soo hordhigay waan cuni waayay ummadeenni oo ilmo yar waxaan is idhaahdaa gabadhayda asma hadday meeshaas hadday fadhido seed yeeli lahayd calaa kulli xaal qofka aan danqanaynina bini aadan ma aha insaaniyadii ayaa laga siibay gabagabadii inkastoo abaarahan ay yihiin musiibo rabbaani ah oo dhanka alle ka timi haddana qaab ceenke ah baa looga samata bixi karaa waxaa mar kale ka hadlaya Sheekh Axmed Qudubi waxaa way ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba rag iyo dumar dibad iyo muxuu ay gudaba waxaa way dad kala u niyeynan indhaha u taagin ummadda Soomaaliyeed cid ka xoolo badan male maal bay meelay dhigaan la yihiin badina tan oo kale way ku imaan kartaa iyaga iyo waxay dhaleen ilaa ka cabsadeenoo
waxaa weeye akoonnada iyo xisaabaha la furayo xoolaha ku soo shubeen ummaddan ha loo gurmado way dhammaatay wakhtigii waxaa nin alqabeenoo soomaaliya isagoo ilmo gacanta jiidayo agoona halla kafaalo qaado adigu mamaad kafaalo qaadid habar duqoo carabaa kafaalo qaadaysa adigu xaggeed la'dahay marka waxay ummaddan soomaaliyeed dadka kale indhaha u taagi iyo wax hanala siiyo iyo carab iyo hanaloo soo gurmadada intay dhaafaan iyagu haysu gurmadeenoo ummaddan sidan ha u dhaamin ummaddan iyagaa halaagay mar qabiil bay ku halaageen marna bismi diin bay ku halaageen in loo gurmado halkooda iyagoon soo qixin oon jidadka ku dhimanin baa yaa loo gurman lahaa iyagaa u diiday ilaa halkan ay isku soo ururiyaan shariidkan yaree la joogo marka soomaalida meelay joogaan rag iyo dumar dibad iyo gudaba ilaahay ka cabsadeen ummadooda ha badbaadiyeen haddii ay sidaa yeeli waayaanna ilaahay ciqaabkiisa waaba loo banbaxayaa waxaa dhegaystayaal guud ahaana halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay saamaynta ay abaartu ku yeelatay koonfurta Soomaaliya dib intaan u kulmi doono barnaamijyo kuwan la mid ah waa Nasra Cabdi Cismaan oo idinku dhaafaysa nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh